السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده mar kale kusoo dhawaada kanaalkeena Theoria Somali oo ka baxa teoriga Soomaaliga oo aad ka barataan mise ka daawataanba teoriga insha Allah taala waxaan isku dayaa maanta in cashirkeeni toddobaad aan galno waa kii noogu dambeeyay wuxuu ahaa kii lixaad hadduu Ilaahay idmo waxaan galaynaa insha Allah cashirkeeni toddobaad sida caadada ah normaalka ah su'aalaha 25 ah waan gudbiyaa marka hadda 25 waan gudbinaynaa hadduu Ilaahay idmo waxaan bilaabaynaa hadda 40 su'aalood oo loo yaqaanay kennis van de verkeersregels en kennis van inzichten en verkeersrisico's oo ah xeerarka iyo fahanka regelka ama qaanuunkaba iyo halistaba insha Allah su-aasheeni noogu horeysa galayna hadduu Ilaahay idmo U wilt rechtsaf. Sorteert u zo goed voor? su-aasha inoogu horeysa waxaa la yidhi u wilt rechtsaf waxaa rabtaa inaad dhanka midig u laabato sorteert u zo goed voor yacni sidaas ku toosisay ama isku hagtay ma si fiican baa waxaan leenahay maya haddaad doonaysa inaad laabato midigta u laabato waddadani waxay tahay mid ah in richtingsweg oo ah in hal dhinac un aad mataqaana aad u bixi karto marka waxay ahayd inaad dhanka midig aad usoo dhawaato si haddii baskiilo ama wax kale dhanka bidix ay kaaga maraan marka waxaan leenahay maadaama oo hadda dhexda uu taagan yahay gaariga waxaan leenahay maya waa inuu dhanka stoopka usoo dhawaada ayay ahayd marka waxaan dhahaynaa wilt rechtsaf sorteert u zo goed voor inaad midig u laabato aad doonaysaa si fiican ma isku toosisay inaad laabato waxaan leenahay maya insha Allah nee U wilt linksaf. Sorteert u zo goed voor? su-aasha xigta waxaa la yidhi u wilt linksaf haddana waxaad doonaysaa dhanka bidix inaad u laabato sorteert u zo goed voor yacni si fiican ma iskugu toosisay inaad dhanka bidix u laabato markan waxaan leenahay haa maxaa yeelay markaan stoopka ama marshabeedka aad buu oo agtiisa u jiraa gaariga marka waxaan leenahay haa waan istoosinay ya U wilt linksaf. Mag dat? su-aasha xigta waxaa la yidhi waxaa doonaysaa inaad u laabato dhanka bidix u wilt links af waxaa rabtaa adiga gaariga eelka wataa inaad u laabato dhanka bidix makhdad ma la ogol yahay waa maya waxaa inoo diiday boorka loo yaqaano verplicht rijrichting boorkan falaartay ku sawiran tahay oo haddana weriga ah wuxuu ka hadlayaa inaad toos aado un mooye ma laaban kartid bidix ama midigba uma laaban kartid marka waxaan leenahay bidix baad u laabato farajada u daaratay mise sinyaalka u daaratay bidixda ma la ogol yahay makhmiya waa maya boorka ayaa ku diiday U heeft een ontzegging van de rijbevoegdheid. U mag dan A. Niet zelf rijden, maar wel rijles nemen. B. Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen. su-aasha xigta waxaa la yidhi u heft adigoo gaariga wata ama laysanba haysta ayaa waxaa la yidhi u heft in ontzegging yani waxaa haysataa mamnuucitaan laga mamnuucay van de rijbevoegdheid yani ogolaanshaha gaari wadida waa laga mamnuucay qaladaas samaysay awgii umakhdan maxaa lagu ogol yahay markaa kadib haddii saas kugu dhacday yani in muddaa laga mamnuucay ugu yaraan adiga 24 hours oo banaan 5 sanood ayaa laga yaabaa marka waxaa laga mamnuucay gaari wadistii laysankii waxaa lagu yidhi gaari mudugtid marka maxaad samayn kartaa marka lagu ogol yahay waxaan lahaynaa insha Allah bayda oo ah niet zelf rijden inaad adiga kaligaa gaari aadan wadin and ook geen rijles nemen inaadan adiga cashirba qaadanin oo gaari wadid ah
riles waxaa loo yaqaanaa cashirka gaari wadida marka need self riding aada wuxuu leeyahay need self riding adiga inaadan wadin gaari ayaa lagu ogolyahay maar laakiin waxaa lagu ogolyahay well riles name inaad cashir qaadato taa waa qalad aaga marka bayda ayaan lehaynaa need self riding inaa adigaadan wadin gaari an og xataa geen riles nemen casharta oo gaari wadita inaadan qaadanin marka waa bayda insha allah tacaala B. Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen. waa bayda Welke gevolgen heeft rijden met een te lage bandenspanning? A. Het weggedrag wordt verstoord. B. Het brandstofgebruik neemt toe. C. Het weggedrag wordt verstoord en het brandstofgebruik neemt toe. waxaa la yidhi su-aasha xigta waxaa la yidhi welka gevolge heeft het rijden yacni dhibaatada amase saameynta ay leedahay markaad gaari wadaysid oo tilaaga bandispanin oo haddana gaari tigerka mise lugta gaariga ee aari zaid ugu hooseyso dhibaatada ay leedahay maxay tahay yacni lugta gaariga mise tigerka mise shaaga loo yaqaan hadduu aariyada mise hawada ay ku yar tahay aadna oo ugu hooseyso dhibaataday keeni karto maxay tahay ama waa tee waxaan leenahay wuxuu leeyahay het weggedrag wordt verstoord yacni weggedraga ama dabciga gaari wadida oo wadadaad ku socoto wordt verstoord way ka khaldamaysaa sababtoo ah haddii aariyada ay ka hooseyso oo aadna doonaysa inaad gaari wado waxaa macquul ah amaba la arkayba inta badana in aadan gaarigaadan xakameyn karin oo ay dhacdo steeriga ama gaariga inuu dhinac kaaga badbato waxaana keenaysa sababna oo ah in aariyada ay ku yar tahay mise hawada lugta gaariga mise taayarkaba marka waxaa ka xumaanayo gaari wadadaadii bayn wuxuu leeyahay het brandstofverbruik of het brandstofgebruik neemt toe isticmaalka shayga wax guba mise baasiinka neemt toe wuu zaa'idaya macnaa haddii aad gaari wado baasiinka oo taayarka hawaday ku yar tahay macnaheeda waxay tahay in baasiinkaada uu kordhayo baasiin badan ismaclayso marka labadaba waan dooranaynaa labada marka waxay iskugu tageen sayda oo ah het weggedrag wordt verstoord aan het brandstofverbruik ama gebruik neemt toe waana sayda yani labadaba waan qaadanaynaa waxay iskugu imaadeen sayda insha allah Is dit een eenrichtingsweg? su-aasha waxaa la yidhi xigtaa is dit in inrichtingsweg miyay tahay boorkan amase wadadan wadadii halka jiha ahayd keliya maya boorkan wuxuu ka hadlaya wax loo yaqaana omliding boorkii kaleete bilowga falaarta ku dhex taalay oo afar geeska ahaa mise buluuga ahaa ayaa ka hadlayo inrichtingsweg laakiin kani wuxuu ka hadlayaa omliding wax loo yaqaano marka kan waxaan leenahay inrichtingsweg ma ahan waa omliding marka su-aashayna weydiisay waxaan leenahay waa ney ma ahan waxaan weydiisay wax kale waay waxaan U wilt hier rechtsaf. Mag dat? su-aasha xigta waxaa la yidhi isla boorka hadda un baa noo taagan marka waxaa la leeyahay u wilt hier rechtsaf halkan waxaad doontaa inaad dhanka midig u laabato ma la ogol yahay makdaad miya haa waa la ogol yahay boorkan omliding unbuu ahaa ama inuu macnaa amar ku siiyey oo toos un aad ku dhahay macnaheedu maaha haddaad doonto waad qaadan kartaa adiga haddaad meesha rabto laakiin haddaad doontan midig iyo bidixba waa u laaban kartaa marka waxaan leenahay midigteena waan u laaban karnaa waana maq waa la ogol yahay ya U wilt zonder rechter buitenspiegel rijden. Mag dat? su-aasha xigta waxaa la yidhi u wilt waxaa rabtaa adiga zonder rechter buitenspiegel rijden waxaa rabtaa adiga miyaaradda haadka midigta ah oo banaanka loo yaqaano buitenspiegelka oo rechter dhanka midig ah iyadoo aysan ku samaysnayn ama aysan ku oolin gaariga ayaad doonaysaa inaad wado gaariga makda taa ma la ogol yahay waa maya labada haad miyaaradooda waa inay samaysnaadaan ama aysan jabsanayn ay ku yaalaan gaariga
waa in ayadoo aanan lahayn inaa wada gaari waa maqnid lama ogola marka u wilt zonder rechter buitenspiegel rijden maqdaad waxaa rabtaa inaad wado gaari adoo aan ku lahayn miraayada haadka oo midig ma la ogol yahay waa nay Op beide rijstroken rijdt de file ongeveer even hard. Hoe kunt u de doorstroming bevorderen? A. De volgafstand vergroten. B. Steeds wisselen van rijstrook. C. Op de gekozen rijstrook blijven. su-aasha xigta waxaa la leeyahay op beide rijstroken yacni beide waa labaduba ereygan beide waa labaduba yacni strogan waxaa la dhahaa lenkan gaariga ku wado iyo lenka kaleete waa rijstrook and rijstrook marka labada rijstrookba ama labada leenbo op beide rijstroken labada leenba right the file ongeveer even hard yacni filada ama zaxmada oo ku socoto labada wadaba oo ama labada rijstrookba orodkooda waa qiyaastii isku mid yacni op beide rijstroken right the file ongeveer even hard yacni orodka mise xawaaraha ay ku socdaan filada oo ama zaxmada oo labada rijstrookba waa isku mid yacni leenka jira midigtane wuxuu ku wadaa konton miskin maybe kan bidixda jirana konton ku wadaa yacni marka qiyaastii isku si ayay u socdaan marka waxaa lagu leeyahay who kunt the doorstromin beforderen sidee adigu horusocodkaada kor aad macnaha aad ugu qaadi kartaa yacni doorstromin waa waxa weeyaan horusocodkaada sidee marka horusocodkaada kor aad ugu qaadi kartaa ama aad u sare qaadi kartaa ee laga wada marka waxaan leenahay sayda oo ah op the gekozen rijstrook blijven yacni leenka dooratay yaa ama aad ku sugneedbo kaa ku sugnaaw ha badalanin ama hadduu midig yahay mise ama hadduu bidix yahaybo waxaan leenahay marka op the gekozen rijstrook blijven leenkaad dooratay mise rijstrookaad dooratay ku sugnow tan kale bidi waxay leedahay badelo maanta dhan strooga tan kale wuxuu leeyahay afstandka gaari ka horeeyo weynayso sida ma ahan marka aniga waxaan dooranaynaa sida oo ah op the gekozen rijstrook blijven Zit in een standaard glas pils meer alcohol dan in een glaasje jenever? su-aasha xigta waxaa la yidhi zit in een standaard glas pils meer alcohol dan in een glas geneva yacni galaaska oo caadiga ah oo khamri loo yaqaano pilska iyo galaas alcohol badan ma ku jirto markii loo eego galaaska loo yaqaano khamriga genevada marka waxaan leenahay maya galaaskan uu yaryahay kana wuu weyn yahay sooma labadooda marka waxaa ku jirta qiyaastii alcohol isku mid ah ama alcohol isku hal ah ayaa ku jirta qiyaastii marka waxaan leenahay alcohol kala badan kuma jirto isku mid weeyaan haddana waxayna weydiisay alcohol badan ku jirto marka waxaan leenahay nay alcohol badan kuma jirto waana nay insha allah Een bestuurder van links geeft u geen voorrang. Mag u doorrijden? su-aasha xigta waxaa la yidhi een bestuurder darawal van links ka imaaday dhanka bidix geeft u geen voorrang kuma siinaya mudnaanta way baad ka leedahay dhanka midiga uga imaaday mag u doorrijden hore ma u socon kartaa yani baskiilka kaaga yimid dhanka bidix waad ka leedahay midig baa uga imaaday wadadan wadada waxay ahayd isgooskii sinaanta ayuu ahaa ama gelijkwaardig kruispunt waad ka leedahay marka asiga kuma siinayo boo iska socdaa marka maad socon kartaa hore ma u socon kartaa maya waxaan leenahay nay baayo waa inaa adiga badbaadada adiga taa aad ka fikirta weeyeen waan leeyahay waan dhaqaajinayaa ma ahan marka waxaan leenahay nay Welk bord geeft adviessnelheid aan? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord A en B. su-aasha xigta waxaa la yidhi welke boord geeft adviessnelheid aan
boorkee sheegaya xawaaraha talada mise lagula talinayo xawaaraha madowga iyo xawaaraha bilowga kan madowga wuxuu ku shaqeeyaa korontada kaasi waa maximum ma ahan mid advice ah ugu dambeyn kaa ku wada lahayd weeyaan macnaha madowga oo koronto ku shaqeeya kan bluega ahne waxa weeyaan advice waa mid tale lagula talinayo ama orodka lagula taliyay inuu yahay marka bluega oo kasta oo afar geesna ah waa xawaaraha talada waxaan leenahay markaa dadaan aada insha Allah tacaala Welk bord geeft eenrichtingsweg aan? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord A en B. su-aasha xigta waxaa la yidhi welke boord geeft eenrichtingsweg aan boorkee kuu sheegayo inay tahay wadda hal jiha unu socoto oo ay tahay eenrichtingsweg labada boorba waxay ka hadlayaan eenrichtingsweg inkastoo tan aada ah ay ka hadasho markay saan u taalo verplicht richting oo ay tahay inaad u laabato dhanka midig keliya laakiin labadooda afar geeska waxay ka hadlayaan eenrichtingsweg marka waxaan leenahay su-aasheena eenrichtingsweg waxaa ka hadlo A en B oo ah sayda Wat betekent dit bord? A. Voorrangskruispunt. B. Voorrangsweg. C. Gevaarlijk kruispunt. boorka xiga mise su-aasha xigta waxay leedahay what betekent dit board boorkan micnihiisa muxuu yahay boorkan micnihiisa wuxuu yahay waxaa loo yaqaanaa isgooska mudnaanta ama voorrangskruispunt Nederland waxa weeyaan voorrangskruispunt isgooska mudnaanta waxaa ka mudan tahay dadka ka imaaday midigta kaaga imaaday iyo bidixba kaaga imaaday waad ka leedahay adiga ayaa ka mudan marka boorkan wuxuu ka hadlayaa isgooska mudnaanta waana A voorrangskruispunt Welk bord vertelt u dat u voorrang moet verlenen? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord A en B. su-aasha xigta waxaa la yidhi welk boord vertelt u dat u voorrang moet verlenen boorkee kuu sheegaya inaad adigu siiso mudnaanta yacni welka boorkee vertelt uu kuu sheegaya adiga daad uu inay tahay adiga voorrang mudnaan mud inay tahay qasab verlenen inaad siido dadka boorkee kuu sheegaya inaad adiga dadka siido mudnaanta boorka aaga waxaan dhahnay adiga ayaa ha mudan hadaa boorkan ku yaal adiga ayaa mudan in lagu siiyo cidii kaaga timaaday dhanka midig iyo dhanka bidix inay ku siido waay laakiin midka haytandigo ama ilkaha kugu soo jeedo loo yaqaana haytandiga waa inaad adiga dadka siido marka midka beyga ayaa noo sheegayo inaan aniga dadka siina ay tahay marka waxaan leenahay boord bay ayaa noo sheegayo in dadkan siina mudnaanta yani dadkii nooga imaaday oo bisturir ah weliba oo midig nooga imaaday iyo bidix nooga imaaday inaan siina waay Welk bord vertelt u dat u voorrang moet verlenen? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord C. su-aasha xigta tii hadda unbay daba socotaa oo waa isku su-aal laakiin waa qaab kale waxaa la yidhi welk boorkee vertelt uu adiga kuu sheegaya daad uu taasoo ay tahay adiga voorrang mudnaanta mud verlenen inaad siido dadka kale yani boorarkan waxaa ku da-ay bilmithalan baraf ayaa ku da-ay marka qaababkay u samaysan yihiin inaad garan kartaa lagaa rabaa boorka aaga wuxuu ka hadlayaa waa kii haddaan soo dhaafeen oo kaleete ama ku kaleete oo ah voorrangskruispunt ama waa gevaarlijk kruispunt ama boorarkii ahaa kuwa ka hadlayay waa digniinta boorka hoose oo sayda wuxuu ka hadlayaa in ay tahay voorrangweg boorkii loo yaqaanay oo ah jaalaha ahaa boorka beyga waa kii haddaan lahayn waa haytandigu waayo dhinaca falaarta mudaca dhanka ayay usoo jeedaa marka waxaa la fiirinayaa maadaama barafku da-ay nooca iyo qaabka u samaysan yahay boorku inaad adiga fahmi karto
marka waxaan leenahay board bay ayaa noo sheegaya weli in aan dadka kala siina mudnaanta marka waxaan leenahay board bayga waayo falaarta anaga dhankeena ayuu soo jeedaa waana haytan diga kan ka hadlayay oo ahaa ilkaha iyo xaaska. Welk bord geeft gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen aan? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord C. En su-aasha xigta waxaa la yidhi welke boord geeft gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen aan yacni boorkee ku sheegaya mise ku siinayabo gesloten verklaring caddaynta xiran oona khusaysa for alle motorvoertuigen oo wax walba ku shaqeeya motor inay khusaydo mootada weyn baabuurka weyn wixii ay ku sawiran wuxuu ka hadlayaa inuu ka hadlayo wax walba ku shaqeeya motor inay ka xiran tahay wadadan waana caddayn xiran midka aaga ah wuxuu ka hadlayaa wixii ka badan 2 lug intama geli karaan waay midka bayga wuxuu ka hadlayaa mootada weyn intama geli karta waay laakiin markii la isku daro labadoodii wuxuu ka hadlayaa ala motorvoertuigen wax walba oo ku shaqeeya motor oo sida theory-ga qeexay inaysan geli karin wadada waxaana nooga hadlaya midka sayga ah haddana waxaan dooranaynaa sayga insha Allah tacaala. Wie moet u voor laten gaan? A. Alle weggebruikers behalve voetgangers. B. Alle weggebruikers. C. Alle motorvoertuigen. En su-aasha xigta waxaa la yidhi wie moet u voor laten gaan yaad horumarinaysaa yaa qasab ku tahay inay ay ka horumaraan maadaama boorkan aragtay oo calaama su-aalka ah oo lagu leeyahay iska jir halista oo hoosna ay ku qoran tahay outread waxaa loo yaqaanaa ama ganjeel ama meel shaqo irdeeda ka baxaysa ama meel yaroo degaan deg ah oo loo yaqaano outread ayaad ka baxaysaa marka yaa kaa leh lagu leeyahay waxaa kaa leh marka insha Allah alla way khabaray kalis wax walba wadada isticmaalayo way ka leeyihiin insha Allah wax walba wadada isticmaalo way ka leeyihiin maxaa la marka bayda. Welk bord geeft een maximaal toegestane lengte aan? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord C. En su-aasha xigta waxaa la yidhi welke boordkee mise calaamaday sheegaysa in maximale toegestane lengte aan dhirirka ugu dheero jiifka marka laga hadlayo oo la ogol yahay ugu badnaan la ogol yahay waa kee kuu sheegaya midka aaga wuxuu sheegayaa dhirirka istaaga ah oo jooga wuxuu leeyahay gaari intaa ka joog dheer ma gali karo waa meel buundo kaleeta ayuu ka hadlayaa kan marka waayo marka laga soo bilaabo saxada hoose ilaa ay kor oo buundada ay ku samaysan tahay hadda intaa ka dheeraato waxaa macquul in la buundada taawato marka halkan ma gali kartid waay marka midka bayga wuxuu leeyahay haddaa asigana aad balacaada uu 2 mitir iyo 3 ka badan yahayna ma gali kartid waay laakiin kan sayga wuxuu ka hadlayaa dhirirka midka jooga maaha midka jiifka ah haddii adiga aan hanqwaaqana aad isku xiran tihiin oo kale ama haddii gaarigaada kaligiisa oo 10 mitir ka bato wadadan has ku galin waay dhirirka laga hadlayana midka istaaga maahan midka istaaga ah maahan waxaa laga hadlayaa dhirirka saan markuu wax dhulka saan u yaalo jiifka ah hadda dhirirka istaaga kan baa ka hadlaya oo aada kan wuxuu ka hadlayaa dhirirka jiifka ah marka waxaan leenahay midka sayga ay ka hadlaya lentada waana say. De minimale profieldiepte van de hoofdgroeven van een band is A. 0,6 mm. B. 1,6 mm. C. 2,6 mm. En su-aasha xigta waxaa la yidhi the minimala waa profile dibta yacni jeexa oo lugta ma godka lugta ay leedahay taayirka uu leeyahay oo yaraan la ogol yahay oo waa imisa
lugta caadi hadday tahay isan winter ahayn waxaa la ogol yahay 1,6 millimeter waxaa la ogol yahay 1,6 millimeter inay jeexnaato ugu yaraan weliba ka badan waa la ogol yahay dhimahan hadduu lagu dhaho ama haddii lagu dhaho tayarka winterka ama waqtiga qabowaha jiro tayarkiisana waa imisa ugu yaraan kaana waa 4,0 millimeter waa 4 millimeter insha allah kan laakiin hadda waxaan leenahay waa luga caadi ah normaal ah waxaan leenahay 1,6 millimeter De maximale geldigheidsduur van een rijbewijs is A. 10 jaar B. 5 jaar C. 3 jaar su-aasha xigta waxaa la yidhi the maximale geldigheidsduur van een rijbewijs yacni cadadka ugu badan uu shaqaynayo laysanka mise rijbewijska waa imisa يعني laysanka kusoo guulaystay waa soo qaaday imtixaankii marka intee leeg ayuu uu soconaya ku shaqeynaya rijbewijka saadan u baahnayn inaad soo cusboonaysiiso waxa uu ku shaqeynayaa 10 sano 10 sano kadib inaad tagto aad dhahdo haliga bedelo mid kale halaysiiyo wuu dhacay kan wuxuu dhahday expire marka intee leeg ayuu shaqeynayaa waan leenahay waa 10 sano the maximale geldigheidsduur van een rijbewijs is 10 jaar waana aada De geldigheidsduur van een theoriecertificaat is A. 1 jaar B. 2 jaar C. 3 jaar su-aasha xigta waxaa la leeyahay the geldigheidsduur van een theoriecertificaat is cadadka ama muddada uu ku shaqeynayo shahaadada teoriga waa imisa cajaladan maadaama cajalad hore tahay xoogaha waxaan leenahay waa 1 sano laakiin waqtiga haddaan ku jirno joogno iyo sanadkan joognaba waxa weeyaan sanad iyo bar laakiin maadaama cajaladan cajalo hore ahayd su-aashan waxay ka mid tahay su-aalihii wax laga bedelay su-aashan waxay ka mid tahay su-aalihii wax laga bedelay 1 sana ayuu ahaa waagii hore waxaa lagu kordhiyey bar marka waxaa leenahay sanad iyo bar ayuu ku shaqeynaya yacni theory ayaa kusoo guulaysatay meeqa sana ayaa theorygaas hayn kartaa ama uu ku shaqeyn karaa haddii hadda waxaan leenahay 1 sano laakiin su-aashan waxaan leenahay cajalkan 1 sano laakiin haddeertan waa sanad iyo bar waa 1,5 macna yaar waxay ka dhigtaa marka intaas muddo 1 sano iyo bar waa ina casharadii caadiga ray leski aad barataa ray examarkii aad gashaa imtixaanka gashaa kadib inta muddada ku jirtid haddii aad kusoo qaado rijbewijska teoriga dhicidiisa wixiisa mataqaana waad ka kaftoontaa kama dhacayo laakiin haddii uu teoriga adoonan aanan soo qaadin imtixaankii gaayo wadida ahaa uu kaa dhaco waxaa qasab ku tahay mar kale inaad teoriga imtixaan soo gasho waana arrin aad u xanuun badan marka aniga waxaa leenahay su-aasheenaan ama iyo cashirkeenaanbo in yaaro waay laakiin adiga maankeena ku haysaa lagaa rabaa inuu yahay sanad iyo bar hadduu ilaahay idmo U kunt uw onderbeen beperkt gebruiken. Levert dat gebrek tijdens het rijden in een schakelauto extra risico op? su-aasha xigta waxaa la yidhi u kunta u onderbeen beperkt gebruiken yacni waxaa la yidhi lugtaada hoose midda qaybta hoose macnaha si cayiman ayaad u isticmaali kartaa waa beperkt gebruiken yacni si oo gabi ahaan uma isticmaali kartid oo inaad tagtagsato ama waxay kaaga baahan tahay aad dhoodhoorto maadaama ay jab jiro marka waxaa la yidhi levert dat gebrek miyuu keenaya jabka lugta ay kaa jaban tahay tyrens goortii hetriden gaarigaad wadayso in een schakelauto gaari marsha markaad wadaysid lugta bidixda ah oo kaa jaban mise kaa xanuunsan haddaad wadaysid gaari marshe extra risico of yacni halis dheeraad may keenaysaa ha yacni lugta bidixda ah hadday dhaawac kaa tahay oo gaari marshana wadaysid lugta bidixda waxay u baahan tahay shaqo inay qabato oo ah
inaad qabato coupling waxa loo yaqaano mise versionka qabatay u baahanta mar walbaba marka maadaama shaqadeeda ay badan tahay macnaha halistaas yani jabkaasi uu si macnaha zaa'idi karaa haddii laakiin gaari automatic ah wato lugta bidixda ee uma baahnid marka waayo lugta midigta unbaad isticmaalaysaa oo fariinka ama bareega iyo khaaska ah ama gaaskaba ah marka su-aashii lagu weydiiyey waxa waaye lugta bidixda hoose qaybta hoose oo kaa xanuunsan yaa si cayiman ama inaad dhoortee kaaga baahan tahay marka jabka ay jaban tahay miyuu keenaya waqtiga gaari wadaysid oo gaari marshaa wadaysid halis dheeraade waa ha Jou, inshallah. U voert tijdens hevige regenval mistachterlicht. Mag dat? Su-aasha xigta waxaa la yidhi u voert tijdens hevige regenval mistachterlicht. Mag dat? Waxaad daartay goortii uu roob xoogan da'ayay. Heviga xoogan waay. Regenvalne uu da'ayay roobkiiba. Mistachterlicht. Nalka ceeryaamada dambe. Mag dat? Ma la ogol yahay waa maya. Yacni ceeryaamada nalka ceeryaamada dambe waxaa la ogolyahay inaad daarto markuu sniyu jiro oo da'ayo baraf da'ayo iyo markii mistay jirto oo ceeryaamo jirto marka kaliya la ogolyahay oo aan aragtida ka yaraato 50 mitir ka yar laakiin roob xoogan hadduu doo mistachterlichtiga in la daaro waa mamnuuc marka waxaan leenahay nay mala ogola Hoe lang duurt het in het algemeen voordat de alcohol van 1 glas bier in het bloed is afgebroken? A. 15 minuten. B. 30 minuten. C. 1,5 uur. Su-aasha xigta waxaa la yidhi hoe lang duurt het intee la-eg ayay qaadanaysaa in het algemeen sida guudka ah mise algemeenka mise generalka ah intee la-eg ayay qaadanaysaa sida guudka ah voordat the alcohol van een glas bier intuusan alcohol oo glas bier ah in het bloed is afgebroken oo dhiigaada uu ka jaabo ama ay ka baxdabo yacni hal glas caadi ah oo alcohol biir ah macnaa glas biira cabtay يعني بيرتا alcohol bay leedahay يعني maadaama hal glass oo biir cabtay intee la eg sida guudka ah oo generalka ah ay ka bixi kartaa dhiigaada waxay ka bixi kartaa sida generalka ah markaan eegno saacad iyo bar oo ah 1,5 uur mise 90 minuten 90 daqiiqo ama saacad iyo bar waa isku mid waxaa la marka sayda duleed Bij een praatpaal van de ANWB kunt u A. Alleen verkeersongevallen melden. B. Alleen technische storingen aan de auto melden. C. Verkeersongevallen en technische storingen aan de auto melden. Su-aasha xigta waxaa la yidhi by een praatpaal baalahan oo loo yaqaano baalaha lagu hadlo waa praat hadalkii paalna waa baalihii sooma marka markaad joogto baalaha lagu hadlo ay samaysay qolada loo yaqaano ANWB kuntu waxaad ku samayn kartaa a wuxuu leeyahay alleen verkeersongevallen melden waxaad ku sheegi kartaa keliya shilalka ka dhacay waddada bna wuxuu leeyahay waxaad ku sheegi kartaa keliya cilad farsamo oo gaariga ku imaaday alleen technische storingen aan de auto melden yani cilad farsamo gaari ama gaari ka halaaway ayaad ku sheegi kartaa ama inaad wacto dhahdo gaariga iga hadlaysan iyo yimaada inaad dhahdo unbaad ku sheegi kartaa marka waxaan leenahay insha allah a iyo b waan isku dareynaa waxayna iskugu tageen sayda oo ah verkeersongevallen aan technische storing aan de auto melden labadaba waad ku samayn kartaa marka waxaan leenahay sayda hadda baalahan meelo badan ma yaalo maadaama telefoonada smartphone waxa badan la isticmaalo marka dadka telefoonadii ayay isticmaalaan marka waxaan waaba laga qaaday waddooyinka waxay ahaayeen mar hore Bij een overweg betekent wit knipperlicht A. Er is geen trein in aantocht. B.
U moet stoppen. C. De seininrichting is buiten werking. su-aasha xigta waxaa la yiri by in overweg markaad taagan tahay wadada tareenka gooya mara macnaha waa betekent macnaheeda with knipper licht hadduu nal cad ku shidmo waxay ka dhigan tahay maxay tahay waxay ka dhigan tahay is geen train in aantoqto train kuma soo dhawa amaba train ma jiro waad mari kartaa waa macnaheeda marka hadduu nalka cadka ku daarmo oo stop lichtiga loo yaqaano oo aad taagan tahay wadada tareenka mara loo yaqaano overweg hadduu nal ku daarmo waxay ka dhigan tahay macnaheeda is geen train in aantoqto train kuma soo dhawa amaba train ma jiro waana aada Aan welke kant van de weg staan rode reflectoren? A. Aan de linkerkant. B. Aan de rechterkant. C. Aan de rechter en de linkerkant. su-aasha xigta waxaa la yiri aan welka kant dhankee van de weg oo wadada ka mid ah staan ayuu yaalaa ama ku samaysan yahaybo rode reflectoren reflectionka gaduudka calaamada gaduudka ah baalahan yar calaamada gaduudka lagu sameeyey calaamada gaduudka waxay ka dhigan tahay reflection ayaa loo yaqaana reflectorenna wax weeyaan waa af Nederland laakiin English ahaana waxaa la yiri reflection waxa waaye haweenkii ayaa loogu talagalay in haddii nalka aad daarato wuxuu kugu soo celinayaa wuxuu yahay waa gaduud hadduu yahay gaduud wuxuu kugu soo celinayaa gaduudkiisii macnaha wuxuu ku leeyahay iska jir aniga gaduud baan ahay yacni wuxuu ka hadlayaa marka qaybta uu wadada kaga yaalo macnaha reflectorenka ama reflectionka oo gaduudka dhanka wadada kaga yaalaa lagu yiri waxaa la leenahay aan the rechterkant dhanka midig ayuu kaga yaalaa wadada marka Yurub la joogana gaariga caadi waxaa lagu wadaa dhanka midig aan ku wadnaa qof walba oo dhankiisa midig aan ku wada waay haddii marka midka cadkaad aragto waxay ka dhigan tahay sayd khaldama haysataa taa ayuu kuu sheegaya waxaana loogu talagalay in wadada lagu maareeyo marka reflectionka ama reflectorenka gaduudka intuu yaala maadaama road kalarka gaduudka loo yaqaano oo r ka bilaabto ama ra ka bilaabto road ahay waxaad isku daydaa adiga dhinaca midigna waxay ka bilaabataa ra ama ertu rechterkant iyo roadka way isleeyihiin insha Allah tacaala rechter ama roadka waa rechterkant marka waxaa leedahay labada raa israacsa adiga aan the rechterkant ayuu ku yaalaa road reflectorenka wuxuu ku yaalaa aan the rechterkant oo bayda dhanka midig ayuu kaga yaalaa wadada Aan welke kant van de weg staan witte reflectoren? A. Aan de linkerkant. B. Aan de rechterkant. C. Aan de rechter en de linkerkant. su-aasha xigta waxaa la yiri tii hadda unbay socotaa tii hadda soomaynaa gaduudka ahaa teedi kala waay marka waxaa la yiri aan welka kant van de weg dhinacyo wadada ka tirsan staan ayuu yaalaa with reflectoren reflectionka cadka ah intuu ku yaala wadada waxaan leenahay marka maadaama uu cadki yahay with waxaan leenahay aan the linkerkant dhanka bidix buu kaga yaalaa gaduudka dan dhahanay roadka waxaan dhahnay aan the rechterkant road rechts with links weeyaan roadka ama gaduudka dhanka midig cadaankane dhanka bidix ama widkane links alena insha Allah taala marka waxaan dooranay anaga midka cad ayaa hadda nala weydiiyay waxaan leenahay aan the linkerkant dhanka bidix ayuu kaga yaalaa wadada waana aada In welke rijstrook is het risico van spoorvorming het grootst? A. Rijstrook 1. B. Rijstrook 2. C. Rijstrook 3. su-aasha xigta waxaa la yiri in welke rijstrookee mise leenkee mise seedkee is het risico ayaa halista van spoorvorming inay wadadu jajabtay ama ay laamiga ka dhamaaday het grootst ayay u weyn tahay ama aaba macnaha oo ugu badan tahay yani in welke rijstrook
raystroge ama leemanka loo yaqaan raystroge leenka gaariga loo wado kow raystroge kan kale waa raystroge kan kale waa raystroge yani raystroge ayaa halisteedu inay wadada leedahay mise raystroge uu leeyahay inay jajabtay ama godgod mise jeexantay mise laamiga ka dhamaado u baahantay in la dayactiro ya ayaa sport formingka halisteedu ku badan yahay waxaan leenahay marka raystroga mise leenka dhanka bidix wada dhanka midig wada jiro oo hadda lambar 3 noogu qoranta mar walba adiga inta lambarka lagu qoray muhiim maahan lambarka inaad doo fiirsato laga rabo adiga waxa laga rabo inaad fiirsato dhanka midig raystroga jiro hadda aniga waxa noo jira dhanka midig raystroga noo jiro waxa weeyaan lambar 3 ayaan noo saareen marka waxaan leenahay raystroga uu ku badan yahay jajabka jaxjaaxa iyo inuu laamiga ka dhamaaday u baahanta dacdir waa number 3 waxaana keenayso baabuurto dhan baa midig ku socoto baabuurta waaweyn baabuurta yar baabuur balbo midigta in badan ku wadaan marka laamigii iyo jajab ayaa ka imaanaya marka hadduu roob doone halis bay leedahay ina gaariga macnaha aad maamuli kari weyso marka daarum sport ama raystroga 3aad ayuu ku badan yahay sport formingku waa 3 Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fietser, 2 auto, 3 motor. B. 1 motor, 2 fietser, 3 auto. C. 1 fietser, 2 motor, 3 auto. su-aasha xigta waxaa la yiri what is here the juiste volgorde van voor laten gaan yani maxay tahay waxa ugu saxan oo la iskugu xiga loo kala hormaray halkan wadadan waxaan aragnaa in uu yaalo wada boorar ay tahay baaskiilkan ugu horeyn wuxuu leeyahay voorrangsweg ayuu leeyahay asaga ayaa ugu horeeyo gaariga jaalaha ah iyo mootada waxay leeyihiin labadoodana heighthand ayaa wada hayso maadaama labada iska soo horjeedaan isku qaanuun ay yihiin waxa tooska ayaa baxayo mootada ah kadibna gaariga jaalaha waa insha Allah taala marka waxaan leenahay baaskiilka brumfits ama motorka kadibna waa auto waa sayda fits motor auto Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fietsers, 2 auto, 3 motor. B. 1 fietsers, 2 motor, 3 auto. C. 1 auto, 2 fietsers, 3 motor. su-aasha xigta waxaa la yiri sidee halkan ugu saxan la iskugu xigo loo kala leeyahay wadada marka wax weeyaan wada oo loo yaqaano gelijkwaardig kruispunt isgooska loo siman yahay oo aanan boor lahayn marka waxaa loo eegayaa tani midigna waxaa loo yaqaanaa mootadan haddaan fiirino mootadan dhanka midig waxaa ooga imaaday gaariga ayaa ka leh gaarigaasna dhanka midig waxaa ooga imaaday baaskiilaha mise baaskiilada ayaa ooga imaadeen dhanka midig marka baaskiilada ayaan siinayna ugu horeyn kadibna gaariga kadibna mootada u dameyso waxaan leenahay fietsers baaskiilada auto gaariga iyo motor mootada waa aada Op deze weg is het voeren van verlichting aanbevolen. Welke verlichting voert u? A. Groot licht. B. Dimlicht. C. Stadslicht. su-aasha xigta waxaa la yiri op deze weg wadadani is het voeren van verlichting daarida oo nalalka aanbevolen ayaa lagula talinaya yani op deze weg wadadani is het voeren inaad daarto van verlichting nalal ama nalkabo aanbevolen ayaa lagula talinaya
welke verlichting nalkee voert u ayaa daaraysaa waddada maadaama ay tahay waddo xogaha mugdi ku jiro mise madow ku jiro dongar ay tahay waxaana keenaya sababta geedaha caleemahooda keenaya marka waxaa lagula talinaya inaad nal daarto nalkee baad daaraysaa nalkaad daaraysa waxayaan dimlichtiga ayaa daaranaya qaroodka maahan istaadka maahan nalka waxaad daaraysaa oo dimlichtiga marka waxaan dhahaynaa insha allah beyda oo ah dimlichtiga Door verkeer achter u is invoegen nog niet mogelijk. Mag u nu al richting aangeven? Su-aasha xigta waxaa la yidhi door verkeer achter u maxaa yeelay gaari ka dambeeya adiga is invoegen inuu galo highwayga nog niet mogelijk suurtagal uma ahan mag u nu adiga marka hadeertaan ma lagu ogoleh al richtinaaqi inaad siisato wajahada oo aad sheegato inaad galayso waa maya marka waxaad saarantihiin labadiinaba kan kaa dambeeya adigaba waxaad saarantihiin fluxstroga maadaama highwayga zaxmad uu yahay oo aad rabtaan inaad gashaan laakiin kii kaa dambeeyey waxaa u suurtagali la inuu galo highwayga waxaa markaas macnaa ayaa meesha ka muuqata in gaari uu ku jiro waddada hadduu kii ka dambeeyo uu gali waysan yahay oo gaari ku jiro waddada adigana ma daaran kartid oo gaariga oo kaa ka istaagay ayaa kugu soo aadan kugu soo wajahan marka waxaa la yidhi door verkeer achter u sababtoo ah maxaa yeelay gaari ka dambeeyo adiga oo gadaashaada taagan inuu galo invoegen oo sameey highwayga galo nog niet mogelijk suurtagal uma ahan inuu galo halka mag u ma lagu ogolaya adiga marka nu al haddaba irikhtin aangeven inaad daarto sinyaalkaada mise aad jihada daarto fareejada dhahdo waan galayaa waa maya marka sababtee kan kaa dambeeya hadday u suurtageli weyse inuu galo waxay ka dhigan tahay marka inuu ka istaagsan yahay ama uu ka joogay gaari ku sugan dhankiisa meeshuu gali lahaa marka kaa macnaa uu ka geli waayey waddada adigana uu kugu soo wajahan yahay marka kaa markuu ku dhaafo kadib unbaad jihada daaran kartaa aadna gali kartaa highwayga marka waxaa leenahay nay U wilt rechtsaf. Sorteert u zo goed voor? su-aasha xigta waxaa la yidhi waxaad rabtaa u wilt rechtsaf waxaad rabtaa inaad midigta u laabato sorteert u zo goed voor si fiican ma isku toosisay ma isku hagtay inaad gasho waxaan leenahay maya dhexda ayuu isku aadiyey inuu dhanka midig isku hagay ahayd uu dhawaado stuubka mise marshabeediga u dhawaado marka waa nay su-aasheena U wilt de ruiter inhalen. Wat doet u? A. Klaksoneren en uitwijken. B. Snelheid aanpassen en uitwijken. C. Klaksoneren en snelheid aanpassen. waxaa la yidhi u wilt the ruiter inhalen waxaad doonaysaa inaad dhaafto farasta ruiter waa farasta sooma inhalen inaad dhaafto muddo doonaysaa what do to maxaa sameynaya macnaa maadaama farastaysan orodkeeda u badnayn oo adiga gaari wadato inaad moodaa rabtaad ka hormarto maxaad sameynay marka a wuxuu leeyahay klaksoniran hoonka u yeedhi an outwiken kana siko macnaa dhexdiina inta ku jirto in fiican ha ahaato waa khalad klaksoniran hoon u yeedhi uu leeyahay hoonda u yeedhayso way kaa didaysaa macnaa farastu bay wuxuu leeyahay marka snelheit aanpassen xawaarahaada wax ka bedelo soo yaray an outwiken kana weeco kana duruq taa ayaa saxa insha allah saydina wuxuu leeyahay klaksoniran hoon u yeedhi mar kale an snelheit aanpassen xawaaraha ka bedel maya hadday ku jirto marba klaksoniran mis hoon u yeedhi waa khalad way kaa didida farasta insha allah marka waxaan leenahay bayda xawaarahaada wax ka bedelo soo yaray kana weeco kana duruq oo ah bayda hadduu ilaahay idmo snelheid aanpassen an uitwijken Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fietser. 2 motor. 3 auto. B. 1 motor. 2 fietser. 3 auto. C. 1 fietser.
2 auto, 3 motor. su-aashii xigta waxaa la yidhi sida ugu saxan la iskugu xigo loo kala hormaraya waa sidee waddadaana waa waddo loo yaqaana glyquatic trispond ama isgooska loo siman yahay aanan boor iyo xeer aan lahayn waa tii loo eegayo midig marka gaarigan eegayna gaariga dhanka midig waxaa ooga imaaday mootada ayaa ka leh mootada dhanka midig waxaa ooga imaaday baaskiilka ama baaskiilka ayaa ka leh marka ugu horeyn waa baaskiilka kadib waa mootada kadibna waa gaariga waxaan leenahay marka ugu horeyn waa fits waa baaskiilka laba waa mooto saddexna waa gaariga auto waa aada Bij welke splitsing moet u bestuurders van rechts verwachten? A. Alleen splitsing A. B. Alleen splitsing B. C. Splitsing A en B. waxaa la yidhi su-aasha xigta by welka splitsing kala badh mise qaybtee yacni sabirkan aada ah waa bar ama qayb kana waa qayb kale marka waxaa la yidhi by welka splitsing qaybtee mood uu ayaa ku khasban tahay adiga bestuurders darawaliin van rechts inay dhanka midig verwachten ay kaaga yimaadaan yacni qaybtee ayaad ka file inay darawaliin wax wada dhanka midig kaaga yimaadaan inaad adiga midig u laawato ma ahan su-aasha boor a wuxuu ka hadlayaa inrichtingsweg oo haddana verplichte ah oo dhanka falaarta u jeedo cid kaaga imaan karto ma jirto haddaa inta onderboard lagugu sheegin lagu dhihin mootada mise baaskiila ka hormaagta ana lagugu dhihin laakiin hadda falaarta dhanka loo aadiyey cidna kaagama imaan karto oo ah darawal laakiin dhanka bidix falaarta dhankay ka jeedo waa laga imaan karaa oo dhanka midig ah rechts waa lagaaga imaan karaa aada laakiin dhanka bidix maya midka beyga ah wuxuu ka hadlayaa verplicht richting oo midka wareega ah adiga ayuu amar ku siiyey inaad u laawato bidix marka dhanka bidixaasna waa lagaaga imaan karaa asi diyaaruwa ha ku tashan dhanka midigna waa lagaaga imaan karaa marka midkaa ku tashanaysid waxa weeyaan kan afar geeska ah meeshay u jeeda falaarta lagama imaan karo mid kale waxaa jiro kan kale usmaysan laakiin jaalahaasna wuxuu la mid yahay inaad la soo qaado waaye midka wareega asida dhanka ku aadi muhiim maaha inaad dhahdo lagama imaanayo labada dhanba waa lagaga imaan karaa marka hadda su-aasheena waxay tahay waxaa nala weydiiyey darawaliin qaybteed ka filaysaa inay kaaga imaadaan dhanka midig midka beyge bidix waa lagaga imaan karay midigna waa lagaga imaan karay asi waa khuud midig waa lagaga imaan karaa kane bidix in lagaga imaado waa la diiday laakiin midig waa lagaga imaan karaa marka waxaan leenahay a iyo beyba waa laga imaan karaa waxaan leenahay marka kan midig waa laga imaan karaa bidix waa laga imaan karaa bey waa khuud laakiin kan bidix in laga imaado waa la diiday laakiin midig waa la ogolyahay su-aasheen waxay ahayd rechts dhanka midig ma laga imaan karaa waa haa waa a iyo bey marka waana sayda U stopt hier om een passagier te laten instappen. Mag dat? su-aasha xigta waxaa la leeyahay u stopta hier halkan ayaa gaariga istaajida adiga waana autoweg waddada boqolka lagu wadi karay in passagier si ah qof rakaab gaariga kuu saaran tilata instappen maya qof gaariga inaad soo saarto makhdad ma la ogol yahay waa maya halkan waxaa la ogol yahay inaad gaariga ka halaabo aa istaagto laakiin inaad qof soo saarto mise qof aad ka dejiso gaariga ama alaab aad gaariga saarto halkan lama ogolo halkana istaagtay si aad qof gaariga u saarto ma la ogol yahay waa maya nay U rijdt hier 40 kilometer per uur. Mag dat? su-aasha xigta noogu dambaysan insha allah waxaa la yidhi u rijdt 40 kilometer per uur halkan waxaad ku wadaa 40 saacadiiba makhdad ma la ogol yahay u rijdt hier 40 kilometer per uur makhdad meeshaana waa 30 kilometer zona mise waa zone 30 waa gaduud 30 ayaa gaduud lagu geliyay waxay ka dhigantaa marka waa qasab intaa inaadan ka badin laakiin adiga waa ka badin madax adeeg 40 ayaa ku wadaa marka maxaa leeyahay waa nay 40 baa ku daa halkan ma la ogol yahay
waa maya marka waxaa leenahay nay waana su-aashii inoogu dambeyd insha allahu tacaala الحمد لله رب العالمين سؤاليه وإنه دينهين وفرتين كسؤالات وحنا أركنا إنه وده سحينه أيقرنا بيهين وده عقار قرون waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin maadaama aad ku taxantihiin casharada taxanaha kuna soo dhawaada janaalkeena hadduu ilaahay idmo waan isku dayaynaa inaan mar walba wax soo geliyo waqti aan helo hadduu ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك